kadib markii dalka Yemen uu galay xaalad adag oo kala orod iyo cabsi badan ay ku lamneed Soomaaliya waxa yimid qaxooti badan oo Yemeniyiin ah. halkan waa xarunta ay wax ku bartaan ardayda qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. sida aad u jeedaan qaarkood xilligan oo qorraxdu aad u kulushahay ayay waxa ciyaarayaan kubadda. qaarkoodna gudaha fasalada ayay ku jiraan oo waxa ay ku jiraan xilliyada imtixaanaadka. hadda waxaan u galeynaa gudaha mid ka mid ah fasalada ay ardaydu ku jiraan. ardaydan ayaa u fadhiya hadda imtixaanka kala barka sanadka. أنا اسمي هنا قاسم صالح وأدرس مدرسة الجالية اليمنية. magacaygu waa Hana Qaasim waxaan dhigtaa iskuulka jaaliyadda Yemeniyiinta ee Muqdisho gaar ahaan fasalka 6. Soomaaliya xaaladdeedu waa mid wanaagsan balse inaga xaalku xogaa caadi maaha. saa iskuulka waan helnaa dharka iyo waxaas haddana wali wax baan tabaynaa runtii xaalkeenu maaha sidii caadiga ahaa marmar xataa waxba ma helno. inkastoo ay helaan qaxootigan Yemeniyiinta waxbarashada haddana waxa ay sheegeen in Soomaalidu aysan u garab istaagin sidii ay ka filayeen. بالنسبة لوضع اللاجئين اليمنيين هنا في مقدشو بالتحديد marka aan ka hadlo xaaladda dadka Yemeniyiinta ee jooga Muqdisho waa xaalad aad u liidata. waxaan rajaynaynaa in dadka ku shaqada leh howlaha gargaarka si guud gaar ahaan kuwa ku shaqada leh Yemeniyiinta inay arrintan xal u helaan. muddo 2 sano ayay Yemeniyiintu Muqdisho joogaan welina waxba ma aysan helin. laakiin kuwa ku nool goobaha kale sida Boosaaso iyo Hargeysa waxa ay helaan xuquuq sababta kuwa Muqdisho jooga aysan u helin anigu wali ma garan. اخواننا الصومال في اليمن مدة 26 عام. walaalaheen Soomaaliya 26 sano waxaan ku martigelinay dalka Yemen waxay helayeen dhammaan xuquuqdooda sida waxbarashada caafimaadka iyo waliba nabadgelyo. annagu hadda waxaa nagu yaraaday caafimaadkii waxbarashadii iyo maciishadii oo ah tan ugu muhiimsan. cabashada ugu weyn ee aan qabno waa kuwa naga mid ah ma haystaan shaqo ma haystaan guryo Yemeniyiinta Soomaaliya joogta qaarkood waxay cunaan hal mar maalinkii sidaasi ayay iyaga iyo carruurtoodaba ku nool yihiin. اللاجئ اليمني لا يوجد احيانا قوت يومه بعض احيان ياكل قوت مره واحده في اليوم. gudoomiyaha qaxootiga dadkan Yemeniyiinta ah ee Muqdisho ayaa inoo sheegay in hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaleba ay meermeeriyaan taas beddelkeedana aysan jirin wax qabad muuqda. UN-ka shaqada nagu hayo waa mumaatala been ayaa nolo sheegaya wax nala qabtay malaha intaasoo shaqaalo ayaa mishahar nagu kor qaadato kii 3,000 qaato kii 4,000 qaato kii 700 qaato waxaynu ku qaataan qaxootiyan u shaqeynaa waana la shaqeeyaa laakiin waxaan qaadana malaha. ijaarka meesha ee qaranka aniga waa hadla korno dhooran malaha. aniga dawladda Soomaali madaxweynaha Soomaali السيد محمد عبد الله فرماجو waxaan ka dalbaynaa inuu u soo jeesto arinta qaxootiga Yemen ku nool magaalada Muqdisho. qaxootiga Yemen ku nool Boosaaso iyo Hargeysa bil walba waxooda way qaataan $100 ayay qaataan. limaada maxay say ku dhacday qaxootiga Yemen oo Muqdisho ku nool inuu xuquuqdaas ku waayo haddaan qaxooti ahaan runta nala sheego shahaadooyinka iska jeexjeexno magaalada aan galno mac salaama. intaas oo caqabadaha oo jira waxa ay noo sheegeen inaysan Soomaaliya ku dareemaynin wax midabta koor ah. waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed soo dhawayntooda qiimaha badan. marka aan daacadnimo u hadlo ma dareeno wax kala sooca dadka oo dhan way ina soo dhaweeyeen. أنا أشكرهم جميعا.